بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج عسوب وكدوان كوي آد هوري إنو غبرتين هالكان كبحي جري برنامج كانوا أنو مقعدرناي محا سعودة أما what's going on وحان سو قادن دونا وحيابها كسعودة environment-iga هدي أهان digital environment أما physical environment يعني deegaanka digitalka sida social media internet-ida waxaa ka socda iyo sidoo kale deegaanka muuqda sida wadanka maxaa ka socda gobolka maxaa ka socda guud ahaan caalamka dhan maxaa ka socda waxyaabaha xaadithooyinka soo cusboonaada markasta dadku ay aadka u hadal hayaan mudan in wax laga dhaho dadka marka ahlul ikhtisaaska fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ilaahi dadka yani mudan in wax laga weydiiyo ay tahay oo hadii marka dadka mudan wax laga weydiin dadka caamada ay marka hadal qaadaan laga yaabo inay macna kale iyo jiha kale ay la aadaan oo si kale ay u dhigaan oo dadka marka wax baara oo wax akhriya in wax laga weydiiyo ay tahay markaas ku soo qaadan doona inagu halkan ku casuumi doona dadka ugu wanaagsan barnaamijkaas ama mowduuca marka la hadal hayo ama bulshada ay hadal hayaan dadka ugu mudan inay wax ka dhahan ay tahay barnaamijkan waxaan rabnay Ramadaan kadib inaan bilaawno laakiin waxaan hadda aan Ramadaanka dhexdiisa inaan bilaawno nagu dhaliyay mowduuc ayaantan aad loo hadal hayay oo maaragtaanay social media ayaantan aad ugu faafsanay aad loo hadal hayay ayaan jeclaystay bal inaan wax ka iraahdo mowduucaas oo ahaa arrin yar dhalinyaro oo nin culimo uu yani toosh ku ifiyay oo dhalinyar Soomaaliyeed uu yiri waxay la shaqeystaan dadka shaydaamada caabuda ama shaydaamada la shaqeystaan isagoo markaas cadeyn ahaan u keenay astaamo marka ay muujinayaan gacmahooda iyo waxa la mid ay ka muujinayeen marka waa arrin overused oo isla xog badan waad ka haysaan maadaama arrinta maalmahan isbuucyadan aad loo hadal hayay marka ma rabo inaan sii faagfaago laakiin noqdo yar oo aan isla yahay dadku dhalinyarta kuma baraarugsana ayaan raba inaan baraarujiyo noqdadaas oo inta badan calaamadahan ama astaamahan lagu yaqaano dadka shaydaamada caabuda ama illuminatic signs-ka la yiraahdo waa astaamo dabcan iyagu ay ku muujiyaan cibaado iyo maaragtaanay iyo cid ay iyagu caabudayaan qaabka ay u tilmaamaan iyo shaqooyinka ay qabtaan iyo waxyaabaha ay isla ogyihiin iyagu waxay ku calaameystaan ku astaansadaan sida darteed astaamahan dhalinyarta Soomaaliyeed in badan oo kamid waxaad arkaysaa iyagoo isticmaalaya laakiin dadka isticmaalaya dhalinyarta isticmaalaya laba nooc isugu jiraan qayb oo aan isla yahay inta ugu badan waxay u isticmaalaan si iska caadi oo sheeno iyo wax iska caadi ah u isticmaalaan qaybna kas iyo maag iyo ujeedo ay u isticmaalaan waana dhalinyarta u badan nimanka la yiraahdo fanaaniinta oo waliba kuwa raabariska fanaaniinta yani isma lahan kuwa raabariska oo ay saa raabka qaada kuwaasi waxaan isla yahay kas iyo maag waa sidaan anigu aaminsanahay kas iyo maag iyo ujeedo iyagoo og macnaha ay looga jeedo iyo dadka isticmaala iyo waxay uga jeedaan iyagoo garanaya ay kas iyo maag u isticmaalaan sababta aan sida u leeyahayna waxay tahay nimankan horta la yiraahdo ururadan sirta sida Illuminati-ga iyo Masoniyada waxa la midka ujeedadooda ugu weyn ee bulshada ka leeyihiin waxay tahay inay qof kasta ee bini aadam ama bulshooyinka caalamka inay u adoonsiyaan adoomo kaga ay uga dhigaan masiixu dajaal ama ibliis cidda ay caabudaan adoomo uga dhigaan laakiin suurtagal ma ahan in qof qiyamkiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ilaashanayo ku dhagan in inta hal mar la soo weeraro uu gaaloobo ee uu shaydaan caabudo ama qof shaydaankii iyo masiixu dajaal u adeego uu noqdo suurtagal ma waxay sameystaan marka khidad iyo kaartooyin dadka lagu soo xirageliyo oo waxa kamid dadka islaamka oo kale waxa lagu dhex faafiyaa dadka bulshada ay u dan leeyihiin si islaamka kale waxa lagu dhex faafiyaa fisqiga iyo fasaadka iyo waxyaabaha markaas diintooda ay reebtay ama dhaqankooda akhlaaqiyadkooda qiimkooda ay reebtay baa lagu dhex faafinaya si ay markaas ay u noqdaan wax iska caadi oo in la sameeyahay dhalinyartu ay sameeyaan dadka inta badan ay baagsadaan oo dhalinyarta oo dan kamale dadka odayaasha ama duqowda ama da'dooda ay isdhahan horay u badatay waxa ayaga xoog iska ma saaraan waxay xoog saaraan ay ku dadaalaan ay bedelaan oo ay dhaqan dooriyaan waa dhalinyarta marka dhalinyartaas islaamka oo dhaqankooda diineed ku dhagan waxay isku dayaan ku dhex faafiyaan fisqiga iyo fasaadka iyo munkaraadka iyo waxyaabaha maaragtaanay
diintooda ay reebtay iyo dhaqankooda iyo qiimkooda aan ku bannaanayn inay ku dhex faafiyaan si ay caadi ugu noqoto oo markaa meeshaas uu uga soo baxo qof baadilka iyo xaqaba isku walaaqda oo aan yacni inta dukada xagga iska fariistee maaragtaanay haddana xantii iyo dhicii iyo tuugnimadii iyo zinadii caadi ay la tahay hees iska dhageystay caadi la tahay marna qur-aanka daarta marna heeska daarta oo yacni qof xaq iyo baadil oo xaqu uusan ka reebin baadilkii ilaa marka qofka uu noqdo qof xaq iyo baadilka isku qasta waana meesha ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga digayo nimanka yuhuudda ah reer banu israa'iil walaa talbisu alxaqa bilbaadili war baadilka aad xaqa ku qasaydan joojiya ilaahay leeyahay yacni waa dad caadaba u lahaba inay baadilka iyo xaqa ay isku qasaan oo yacni si ay dadka usoo xerogeliyaan waxyaabihii xaqooda iyagoo samaynaya dan kama le inaad islaam ahaato iyo meesha ay kaala dagaalamayaan islaam inaad magaca islaam aad sheegata kaala dagaalami maayo laakiin waxay kaala dagaalamayaan iimaan inay qalbigaa ka dhameeyaan si ay marka taa ay ugu suurto gasho waxay yacni oo fisqigaas iyo fasaadkaas u faafo waxay maalgeliyaan oy xoogga ugu badan iyo maaragtaanay qarash ku bixiyaan oy maalgeliyaan dhalinyarta ama dadka ka shaqeeya fisqiga iyo fasaadka iyo munkaraadka dadka ka shaqeeya waxay xoogga saaraan heesaha waxay xoogga saaraan filimaanta waxay xoogga saaraan isboortiga saddexdaasay u badan yihiin weliba waxaa ugu sii badanoo number 1 ah heesaha heesuhu iskuma jiraan waxaa number 1 u sii heesaha raabka ah oo maaragtaanay raabariska adduunka ugu waaweyn fiiriya adduunku baara insha Allah raabariska adduunka ugu waaweyn waa dadka ugu isticmaalka badan astaamahan illuminatic sign-ka dadka ugu isticmaalka badan waa raabarka adduunka ugu weynaa fiiriya yani Michael Jackson يعني أدون كان هيساس صومر أما فنان صومر رابر صومر كي يقولين أن تلابتو قاضي فرتو تاجب أستان باكوجرتا المناتك ساين هاكوجرتا مركا قف ككوها ولن ويل كان ليرتا سوماليا أما يعني فنان كسومالية الشقدو دي وينيد هيا ووحي وينيد بالشدة كوبادين هيا haddana calaamadoodii iyo astaamahoodii muujinaya de kaas lama dhihi karo bilaash isaga sameynaa ama wax caadi isaga sameynaa waxaan arkay hadda dhalinyartii uu ku eedeeyay wiilkaas qaar kamida waxay dhaheen waxaan caadi baan isaga sameynayn marka qof isaguba ku hawlan shaqadii nimankan lagu yaqiinay dadka ku baadiyay jireen ku hawlan haddana calaamadoodii muujinaya de qofkaas saki weyn iyo calaamad su'aal weyn baa saaran lama dhihi karo qofkaas si caadi isaga sameynay laakiin waxaa jira dhalinyaro intooda badan ah waxay isaga isticmaalaan qaab sheena ah yani sawirray ku galaan inta badan laba farooda u badan astaantaan oo kale way ku galaan sawirraday ku galaan su'aasha marka waxay tahay astaamaha noocan ah ee cibaadada ah marka loo fiiriyo gaalada yani astaan ay ku muujinayaan cid ay caabudayaan oo haddii aad kas u sameeydo gaalnimo keenayda inaad iska sheena isaga isticmaasho shariicadu maxay ka qabtaa ولو أنا وأنا علماء هنا إن علماء الودية أي حيث هذانا واحد جرى وحيابه إن معلومة من الدين بالضرورة إسكاها عامة حتى إسك فهم كرام. هذا كور قصة أرنتان إقل قد بناته باجرت قبر إن صومالية قبر عن فريندس فيسبوك كان كأهين با وحنكو أركي يعني ما نوض هذا الجرين فريندس أمبانا هين وحن أركي أستامو 2019 كيف إذا مرر أن أد بارج جرى الرمهانو عن حق بدن كهي معلومات بدن كهي waxaan arkay waxyaabihii aan yani astaamihii aan aad u kala bartay oo macnaha ay sheegayaan iyo waxa looga jeeday gaalada isticmaala uga jeedaan iyo siraha ku qarsoonay aan in badan baarayn wax ka soo ogaaday mid kamida iyadoo gabadhaas sawir ku gashay oo sheeno ahaan ay malaha iyadu ka dhiganaysay sawir ku gashay marka gabadhii waan la xiriiray waa wada hadalnay laakiin intaan tamhiidka u sameynay wixii aan u sheegi rababa aanan u sheegin baan isyar fahmi weynay blog ugu qabatay waxay ugu dhalatay markaas inaan bal boosiye ka diyaariyo barnaamijyadaan oo aan wax ka qoro wax saasana kamaan qorin laakiin laba boosiye ayaan waqtigaas agteedii soo galiyay 2019kii waxaan soo qaatay ku dhawaad 20 shakhsi oo caan ah oo gaalo ah oo caan oo la yaqaan oo dhamaanteed astaantii gabadhaas u sameynayso kala wada sameynay marka ujeedku waxay iga ahayd astaantaani waxaan wax iska caadiyaba mase ujeedo iyo macno loo sameeyo jirto fariin bay gudbisaa yani dadkan caadi isaga sameeyna laakiin waxa intaanoo gaal ay isku waafaqsan yihiin wax iska caadiya ma wax iska sheena ah waa wax macno ka tarjumayo iyaga agtooda macno ku fadhiyo weey waxaan soo qaatay tixyar oo aan su'aal ahaan ka dhigay oo waxa laga yaabaa inay jacbar tahay dadka abwaaninta inay ciirdaaraan rajeynaya abwaan ma ihi waxaan shaqadaada ahayn dadka shaqad ku ciboobaysaa moogta waxay ahayd
waa su'aal da'weyn oo maskaxdayda sumado wax kastana sirtooda leh ma jirtaa sir qarsan ay gudbinayaan astaamaha sawirada ka muuqda mise waan saralay oo aniga si kale iyo suuraystay waxaan jirin yani waxaan su'aal ka dhigayay dadkaasi waxa ay sameynayaan iyo astaamaha ay sameynayaan yani fariin ku jirta oo ay gudbinayaan miyaa jirta mise anaa dee waxaan jirin ismoodsiiyey bidabci يعني ما جرتو يعني ما هن واحد سك عشوائية فرين بيجودبينيان إسلا جرانيان لكن ده ويل كان مسكين كان أنيرت صومالية ده شيء إني إسكته ليه وإسكت ضيصة يجوا صان سمينا يانو أركو إسكت سمي محيك جيدا بل إلين هو داري وحيك وضعن متك أنا عبدنا هسيد أبو إيالا شيطان كأم إبليس كمرك يسوي يان وجهيسا وقعنت يسوي يان سيد وجوده يسوي كرانا نوعنا مركا ninkii gaalka ah shaydaanka caabudayay kii uu caabudayo tilmaamo adigu maxaa tilmaamaysa marka aad sawirka ku galeysay astaamahan marka albatata in la isticmaalo diinta islaamku meel cad ay ka istaagto waa xaraam in la isticmaalo ma daliilu ala dalika ilaahi subhanahu wa ta'ala kalmad taa ka fudud oo ma aragtaanay hadii taas gaalnimayba keenayda si ka soo isticmaasho ala astaamahaas dad ka soo isticmaasho adigu og waxaan waxa loo isticmaalo aad isticmaasho inay gaalnimo keentay u badan tahay laakiin kalmad caay ah oo aan yani caay oo ka fudud taas ba ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ka reebay saxaabada oo waliba ayagu si wanaagsan u isticmaalay kalmadaas nimankan yahuuda la yiraahdo waa niman dhagar badan oo hadallada way taxriifiyaan oo kalmadaha dadku islaamka isticmaalayeen si kale u bedelaan isku dayaan waa kay assalaamu alayka islaamka salaamtoodii ahayd assalaamu alayka u bedeleen nabigu ku fahmay laakiin alayhi salaatu wasalaam waxay sameeyeen nabiga markay soo jeedinayaan oo kale nabigu u yeerayaan oo kale waxay isticmaalaan kelmadda raacina iyagu marka raacina agtooda macna kale ka tahay min alladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa da'nan fi din kelmaddaas ay isticmaalayaan iyagu marka doonaya inay ku duraan oo ay yani ayaga agtooda waxay ka tahay kalmad caaya doqonkiyo nabiga kaleey salaatu salaam caay bay u hosgalin waa dhagarday kalmadii dhagar ay ahaan ay u yeerayaan waa doqonkiyo ama kii wax mataraha hayo marka ayaga agtooda caay ka tahay laakiin carabiga hadii loo fiiriyo ama luqadda carabiga waa kalmad macno wanaagsan marka xambaarsan oo keena dhowrayo ama noo dhimri na ilaali noo tartiib macno wanaagsan oo noocaas saxaabadu marka sidaa bay u isticmaaleen gaaladuna ama yahuuduna sidaas ay u isticmaalayeen إلهي سبحانه وتعالى كلمداس سدا للباب سقفكي دنبو استعماليبا وقالوا أهذا وصن مسلمين تفرها وكقادان ما دام دغري كجرتو الباب كذا بوا الحيره يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا كلمدا كبدشا لير انظرنا راعنا دنبا اسو دهننا معناheeda banaanka ba ka istaaga haba isku dheynina maadaama adinka idin wanaagsanaa taday rabta laakiin maadaama gaaladii dhagar ay ku qariyeen oo si khaldan u isticmaalayaan baabkeeda ba hal xiriyaan la isticmaalay maxaad u malaynaysaa marka kelmad ka fudud oo hadii dhinac laga fiiriyo caay ah tani waa gaalnimo astaamahan gaalnimo ay keenayaan kelmad ka fudud hadii sida loo xaarantinimeeyay astaamaha isaga isticmaalayno inaga macnaba noolama labadan farood la iska taagay marka sawirka la galay maxaa macnaha ku jira ilaahay ku dhaariyay midka taagayo saas iska dhahaya maxaad uga jeedaa bal weydiiya dhaha isaga weydiiya maxaad kaga jeedaa labada farood waa taagtay waagi hore waxaan moodi jiray in laba qofood bis markay yihiin inay labada farood isticmaalaan iyagoo ka wada labaan nahay baan moodi jiray laakiin 500 haday yihiin laba farood un baa soo taagan marka labada farood maxay ka macno tahay waxa laga yaabaa 100 macnood oo kala duwan in dadku qof mid saarto qof baa wuxuu ku dhahaa imma nasr wa imma shahadan ka wadna nin baa dhihi jiray mujaahid ah baa hogaamiyaha baa ciidankiisa markuu rabo inuu maanta uu dhiirigeliyo dagaalka ay galeen ku dhiirigeliyo laba farood inuu taagi jiro orientation badan iyo wacyigelin uma baahnayn labada farood haduu taago ciidanka fariin waxa loo gudbiyay kama dambeys ah imma nasr wa imma shahada maanta ama dhiman waa la shahiidi ama waa la guuleysan labadaas oo dagaalamayna marka dagaalka mowqifkiisu maanta waa cadi hadii labada farood la taago marka adigu dagaal kuma jirtid hogaamiyaha ma tihid munaasabadii ma joogtid maxaad u taagaysaa marka macnaha aad u taagayso maxay tahay wax iska cashwaa'i wax bila macno ah dadka qaar waxay ku leeyihiin peace and love laga wada nabad iyo kalgacayl baa laga wada nabad iyo jacayl adigu nabad iyo jacaylka u ololeysaad ka shaqeeyda yani maxaad u astaameysatay astaan uga dhigatay wax adiga ka tarjumayo oo shaqadaadii ka tarjumayo amalkaaga ka tarjumayo miya oo waxaad iska isticmaasho wax cashwaa'i oo aad uun sheena ka raadinayso
marka maadaama bilaa macno xataa inaga ay noo tahay saxaabada macnayba u lahaydba kelmad maadaama bilaa macno ay tahay oo wax macnaha adiga agtaada ku jira aysan jirin albaabkeedaba in la iska xiro aan la isticmaalina diinteenu ayna faraysaa maadaama gaaladii ay si khaldan u isticmaalayaan inta macnood saarayda boqolaal ka duwan oo wada shar xambaarsan bay gaaladu u isticmaalaan marka albaabkeedaba in la iska xiro ayay diinta ku dhiirigelin xaqiiqatan faraha bis la taagtaagayana maahane waxaan isticmaalayno dhama astaamahan ay nimankaasu isticmaalan ka buuxaan xaqiiqatan dhismayaashay ku jiraan oo qoraaladii bay ku jiraan oo ashyaadii itemskan isticmaal masaajidii baad ku arkaysaa xataa dhismayaasha masaajidda xataa qaar ku arkaysaa oo masaajidda marka minaaradaha waxaa lagu dhajiyaa inta badan bil iyo xidig bisha fahamnay oo waa midda cirka ku taalla bisha fahamnay xidigtu xaggee u socota xidigtu haddaad dhahdo midda cirka ku taalla waayo dee cirka haddii aad telescope kasta u qaadato waxaa suurtagal inaadan kuba soo arag xidig 5 gees leh xidigtan 5 gees leh oon 6 lahayn oo 4 lahayn oo 7 lahayn cirka kuma taala xaggee ku taalla yani waxaan lagu anqarin laga dhaadhiciyay oo aan iska qaadanaba ilaahay amarkiisa nagoon baarin dadka Soomaaliyeed oo dadka ugu dhow oo dadka ugu fudud dhaqamada noocan lagu faafiyo ogaa maadaama aanay inta badan aan wax indha ku dareen la yeelan iska nahay wixii aan aragno aan qaadano laakiin wax akhris iyo dadka wax baara aan u badnayn waa iska isticmaalnay waa iska qaadan waa ka ayaan dhaxdaas ninkii la oran jiray Sufyaan Sheekh Axmed professorkii aad u bixiseen afar xaasile sideen afar xaasin la guursada ay ceeb tahay waa ku calanka Soomaaliya ku haystay xidigtan inaga shanta Soomaaliyeed oo la baxay laakiin intaana adigu shan Soomaaliyeed u bixin bay jiri jirtay dadka sameeyay maxay kaga jeedeen ilaa midda cirka ku taala ma midda cirka ku taala 5 gees xidig 5 gees uun la 6 lahayn oo 7 lahayn oo cirka kuma taalade hal iyo ilaahuma mid laga helo laakiin cirka waxa ku yaalo dhan waxa laga dhaadhicin 5 gees leeyihiin wax ka jirana ma laha marka waxaan ikhwaani wax laga hoos galiyay oo aan meel ay nooga yimid aanan garanayn waa inaan waxaan baarna xaqiiqatan wiilkaasi tooshka uu ifiyay ama boonka uu garaaco waxa uu ku yara laga faa'iido يعني way jireen dadka dhalinyaro ka sheekaysa xalaqaad laga diyaariyay buugaag laga qoray nimankaasi dhagarahooda waxay isticmaalaan illuminatiga la yiraahdo laakiin wiilkan dadka Soomaaliyeed inta badan qof in lagu dhago bay ku baraarugaan oo qof la iska laalaadiyo wiilkan yani waxa uu sameeyay waxa ugu yara laga faa'iido waa in dadku baraarugaan indhaha la kala qaado oo qofkii hadda kadib calaamadaha isticmaalayo la arko la yiraahdo maxaad kaga jeedaan ruuxaan waxaan bal in lagu baraarugo leeyahay qofka laga bashakeeyo leeyahay qofkan ma loo dhuuntay xagee waxaan kaga yimideen mar dambe wax la iska isticmaalo astaamo la iska taagtaaga iyo fare la iska taagtaaga inaysan jirin la iska shakiyo maadaama la isku dhagayaa hadda kadib marka mawduucan anigoo jecel inaan mar kale sii faahfaahiyo waqtiguna ila dheeraado intaas ku soo koobay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.